السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما all my fans بان سلام لي انت كحرن تيم NYA Channel ساك برنامج كأن هل كان أصوف الإنسان ما هن برنامج اللي هوري برنامج اللي هوري وكد وين هاي برنامج كأن ساك يدين هاي نوحو يهاي أرضي اللي ودي لي مقالة بورم جامعة عمود أرضي شكور اللh hunaxristee maalmahan baraha bulshada waxaa qabsaday geerida ku timid allh hunaxristee war sugan ayaan idinkaga wadnaa marka warkaasoo noo hayo abwaan cabdilshaad artist labadan beri barnaamijyada oo ku jiro baraha bulshada ma ahan mid saxan midka saxan waxaa inoo hayo abwaan cabdilshaad artist abwaan bal ina horkeen waxa ahaysid ما فنسكي جاء هذا ما سنتين وتا المهم براه بسوي واحد بهذا الحياة إبراهيم عبد الشكور وحسيتي سووا ستة عالم كصوماليا أيام الدليل تدبلن با أيهم كفي سن on حقيقة أيضا أهلين واحد دوناش كشيء بل ساك حقيقة نبتها حكت نبتها أيام يدومنا حكت نبتها أيام يدومنا وأنا اللي هو ذاك دونا حدو الله يدمو حقيقة جتانا وين توصل دونا إبراهيم عبد صورتي وحوها ويكسو جدا كي يبدلا وحو جامعة وادد قول كأودل قارحان بورما مركا هالكاسي dad badan baa waxaan arkay baraha bulshada calanka sitaba la dilay arinta saas ma aan akhyari aan runta isku sheegno arinta saxda waxay tahay wuxuu dhiganay jaamacada amud rag badan baa isla jooga meesha si dhalinyaro la ah ka soo jeeda gaar ahaan Puntland xog rasmi ahna wada kaga haynaa haduu allah ibn waan la wadaagi doonaa aan si gudagal hadalkayga jaamacadii ودقني عمود أها وكتجي وحو هذه مجالك يعني وتايم كجامعة بعد ما هذه وحو هذه مجالك السوق مجالك هذا بحي بواحد واحد سوستي موبيلكي سيارة موبيلكي سوي لابي وحو كل لابي جامعة ده كوس جامعة ده موبيل لما جلكه موبيلك يعني واسكت هذا عمل بالرجع جامعة دي wuxuu ugu soo ilaabay jaamacadda magaalada wax isku jirta 5 kilomitir mobilkii markuu saa u eegay jeebkiisu ka waayay wuxuu siri allay wax ku soo ilaawday jaamacadii dib ugu soo laabtay wuxuu yimi 12 5 galabnimo qadar xilliga jaamacadda lama ogolaan la galo markuu yimi isagii waxa ismaan dhaafsadeen waadiye askariga meesha joogay jaamacadda كدب عقاع اسمان راف كدب عشكور تدعينه وقالوا جماعة بيقولوا وقالوا عسكري قالوا وحد دونته كان دي وحد كدونته ماشي يرات هندي يراو سمسنه وحد كدونته خوريجي لأن هالكاس على ودي العشكور ولو سكان على ودي لنكاسي وده فانتي أنا مرينا يعني مركا وحيابها بومبون نسان اللي يدين على كيوسيتي على كيسو ستبا للدين وحسوا بين حالحين تساوي دان وبين حقيقة ربطة إمكا يعني إذا تسدونا أيضا لايفا وكان لايف الرسول كديري وكان لدونا جماعة منكم شوغا يا هرديدي مش ولا شوغا واسمه هالكلاس ولا أين جماعة ولا بيجري أيوة كوا داونايا ولا كدوتي مرك أبوان حكت إنه هيسي متى هي متسحن أو الشعب اللي بدأ يكرمه ها وواحد حن وانا اللي مداق دونا وانا دعوة دونتان هذا على ابنه إن شاء الله أصحابته حنين لنا حين نرد على البرنامج كان وبلا توفيق أنا ما سنتهين أنتوا كحرن channel كتيم NYA artist بدو ما سنتهين مركز أصحابته وركيو حقيقة هالصور المسترن نرد على البرنامج كي halkan waxaan u fadhinaa oo ila fadhiya hareerahayga fadhiya ardaydii ama gudiyadii ardaydii muxuu ahaa ka soo jeeday bariga Puntland
wixii shalay galabnimo ka dhacday jaamacadda bayaaminaysaa qosada u dhacday inoo sheegaysa waayo miidyuhu midba siduu doono ayuu ula kacay dhinacuu doono ula kacay iyadiioo xaqiiqa oo run ah ayaan halkan ka sheegaynaa ibraahim cabdishakuur ilaahay ha u naxariisto wuxuu ahaa ardaygaygii ibraahim cabdishakuur ibraahim wuxuu ahaa ardaygayagii wuxuu ahaa inan yaroo safa boqora horta ibraahim cabdishakuur ibraahim waa wiilkii marxuumkii dhintay allah u naxariistay oo ku dhintay jaamacadda amuud waa kanaa barnaamijkoo saxan hadalka idinka dhexgeli maayo aan idin dhamaystiro loo sii daabo wuxuu u wareegayey junior wuxuu ku soo iloobay moobaayl jaamacadda fasalkiisii imtixaanka ayuu ku soo iloobay kolkuu boorama yimid jaamacadda iyo magaaladuna 5 kilomitir bay kala fog tahay 5 kilomitir markuu ka socdo magaaladii yimid ayuu xusuustay moobaylkiisii inuu maqan yahay ayuu ogaaday halkuu kaga yimidna uu xusuustay baabuur buu qaatay jaamacaddii buu dib ugu muuqday qoladii istabta joogtay ayaa tiri waqtigii uu dhacay way u diideen inuu galo calaa kulli xaal fasalka ugu xiga istabta weeyaan halkuu ku soo iloobay halkaasuu maray askarigii baa ka daba tegey rasaasta teesaa ku dilay askarigaasaa ku dilay askarigu meeshuu doonaa ka soo jeedo annaga waxba nagama gelin ardaygayagii weeyaan ka dhintay oo ardaygayagii exactly magaalada uu ka soo jeeda ama tuulada uu ka soo jeeda haddaanu sheegin eeriyadu baan sheegnay waa kuwan ardaydii hareeraha iga fadhiya muxuu ahaa caddaynaysay kolkaa propagandada laga dhex wado miidiyaha ee la leeyahay calan soomaaliyeed bay wateen maxay buu watay kani baa sidaniya ma jirina sheekadu inankaasi moobaylka soo iloobay ee ku noqday ee askarigii meesha joogay hay safgaran waayeen iyo rasaastaasi oo ku jiiday ayay arrintu ku dhammaatay in badanna waan sheegnay xalay oo dhan wax alla wixii suldaanahe magaalada joogay taasay way tacsiilayeen dhammaantood waan ka wada xunnahay annagu waan ka wada xunnahay aad baan uga wada xunnahay waalid baanu nahay halkan markay joogaan ardaydu annagaa waalid annagaa aabbaa kolkuu xaqiisa looyaradayadii baa jooga hadduu xaqiisa iyo cadaaladiisa waayo annagaa lanagu eedeeya markaa laakiin iyo bilow maanta bilow ay tahay oo siduu wax u dhacayna aanu sheegayno sida wax u dhacay runtii waa sidaa maafish cala soo maqdeen maafishna wax kale oo dhacay intaas weeyaan ugu horrayn waxaan rabaa mar labaad inaan u tacsiyeeyo saaxiibkay galaasmeedkaygii ibraahim cashakuur ibraahim saaxiibkay oo runtii gacanka xaqdaran shalay galab bacdal egsaam jaamacadda camuud oo nin askariya uu ku dilay waxaan rabaa inaan saxano war bogaada ah oo run ahaantii xalay oo dhan social mediaha wareegayey oo waalidiintii annagana naga maqnaa iyo ardadoodii xaaladoodii dejintoodii ilaa xalay aan ku jirnay oo ilaa xalay aan u soo jeednay aan rabnana saaka warka saxda oo jira iyo say wax u dhaceen inaan siino run ahaantii ibraahim annagu waxaan nahay 2 arday iskalaasa wuxuuna ka mid ahaa ardadii unionka ardada puntland weliba waxay ahaayeen ardadii qaybta jaamacadda camuud run ahaantii ardaygaasi shalay imtixaankaan wada galnay jaamacadda imtixaanka looma ogola mobil jaamacadda camuud run ahaantii meel baa laska dhigaa imtixaanka ka bacdii moobeelkiisi buu soo ilaaway moobeelkiisi hadduu soo ilaaway wuu ku laabtay laabashadu moobeel ku laabtay xilliguu soo tegayo magaalada yimaaday wakhtigii waxa la gaaray aan la ogolayn jaamacadda in lagu laabto taasoo jaamacadda 5 galabnimo wix ka dambeeya aan la ogolayn in gudaheeda la galo shuruuda jaamacadaha ka mida waxay isqabteen oo ismaan dhaafeen ninkii askariga ahaa oo goobta joogay ibraahim ninkii waa dhaafay wuxuuna aaday galaasku imtixaanka ku soo galay buu moobeelkii ka doontay askarigiina sandaqadda uu degan yahay buu wuxuu ka doontay qori ibraahim buu ka daba tegey ka bacdi soo murankii waa murmeen xabadduna ku dhuftay waxaan rabaa inaan caddeeyo xabaddaasi inaysan kama ahayn ee uu ka sugu dhuftay inaysan jirin ibraahim iyo askarigu
qori ay isku qabsadeen ama qori ay ku dagaalameen balse isagoo magaal taala ruuxaantii anigu aan ahaa qofkii ugu horeeyay Ibrahim gaariga ka soo dejiyay ugu horeeyo dharka ka bixiyay xabadu ay kaga taale halka laabta oo waliba askariga ay fool iskula joogeen haddaba warka oo sida saxda ah waad aragteen waana la daawateen xaqiiqada jirtaan waan idin sheegnay indhihiina saan ku aragteen soo ma haddaba waxaan kaloo idin leeyahay ibrahim cabshakuur ibrahim dharka calanka laguma dilin isagoo u xidhan laguma dilin ibrahim waxaa lagu dilay jaamacadda camuud isaga iyo askariga jooga halkaasi ismaan dhaafseen xoogaa hadalo muran iyo waxyaabaha moobilkiisa uu soo qaato awgii isagana ninka askariga wuxuu doontay qorigiisii isna halkaas uu ku dilaysay kama marka qiyaaray waa intaasi xaqiiqada dhabta hadalhaynta oo baraha bulshada lagu haayo kale waa been calan baa lagu dilay iyo waxyaabahaasi waa been horta barnaamijka waan isla aragnay dhammaan youtuberada waaweyn oo soo dhiga barnaamijyada qaldan oo si qaldan loo fahansan yahay macnaha oo si qaldan dadka la hor keeno ma ahan hadal qaldan in dadka la hor keeno dadka waxaa la hor keenaa hadal saxan youtuberada waaweyn waxaan fariin u dirayaa inay iska dhaafaan barnaamijyada qaldan si ay ku helaan views ma ahan views waxaad ku heli kartaa barnaamijyada saxan been laguma helo views ciyaari marka waxaan idin leeyahay barnaamij oo qaldan hala imaanin shacabka waxaana kaaga digayaa adigoon xaqiiqada dhabta aadan hayn hasoo fadhiisanina been la soo fadhiisato kursiga taasi waa iga dardaaran xaqiiqada dhabta markaad hesho la imow waa ku maasantaa haddana waxaan idin leenahay halkaan ay daawanayaan waa team NYA Channel wada salaameyna isku soo noqod wanaagsan